aniga raxmatullaahi calayhim waa way dhinteen aabbahay baaba ma yani si 19 halkan uu ku dhintay allah yarxamo laakiin hooyadii anoo yar ilmo yar ah oo 73 ilmo yar ayay dhimatay laakiin in badan waxaan hadda isdhahaa mooyee hadda saan noqon lahaa waxaan isdhahaa haddii hooyadii maanta ay joogi lahayd subax kasta inaan cagaha ka dhunkado ayaan jeclaan lahaa saasaan isleeyahay hadda saasaan yeeli lahaa baan hadda isleeyahay laakiin ma ogisay noqon lahayd xaalkayga hadda aan iskama sheekayn karo waalcilmu cinda allah marka kii aabbe iyo hooye haystow wax weyn baad haysataa aabbaha iyo hooyada hadday kula joogaanna sidaa yeel oo baarinimadu ha kaa gaadho heer yani waxaa la yaab leh waxaa qiso meel ku qoran aan ka aqriyey mid baa wuxuu yidhi aabbahay hooyaday ayaan xogay codkayga kor ugu qaaday arrin baan dhex martay markaasaan xoogay hadal adag ku yar idhi buu yidhi isagaa iska sheekaynay markaasaa wuxuu yidhi waan baxay jaamacadii meeshaasi arday buu ahaa waan tegey markii aan meesha gaaray baan aad arrintii uga xumaaday markaasaan hooyaday waraaq u soo qoray buu yidhi telefoonka ugu soo qoray waxaan ku idhi buu yidhi hooyo waxaan maqlay ilmaha yaryar calaacashooda xagga soo calaacal maahayn tii lugaha dhinaca hoose dhulka marta soo calaacal maahayn mise wax kale af Soomaali calaacasha hoose ayaan waxaan maqlay ilmaha yaryar ama bani aadamka ilmaha yaryar ma dhihin wuxuu yidhi bani aadamka jirkiisa meesha ugu jilcan ee ugu jilicsan waa calaacasha xagga cagta aweeye ma ii saamaxaysaa ma ii ogolaanaysaa hooyo in aan bal arrintaas cilmiyan baan u maqlaye camaliyan aan u arko aan bal bishimahayga ku baadho oo bimacnaa aan meesha intaan kaa dhunkado aan fiiriyo in hilibkaasi jilicsan yahay in kale risaaladaas uu soo qoray hooyadii arrin cajaa'ib leh u soo qortay waxay tiri hooyo baaraka allahu fiik marka hore marka labaadna arrintaa lagu sheegay waa sax weeye umana baahnid in aad adigu aad samayside anaa in badan ogaaday markii aad yarayd baan in badan kaa dhunkan jiray ee aan dhabta kugu hayay ma fahanteen in badan markii aan dhabta kugu hayay ayaan anigu kaa dhunkan jiro marka anaa arrintaas cilmigeeda ku haya oo horey u arkay markaasuu ishayn kari waayey lintii iyo oohintii intay ka badatay buu hooyadii isku tuuray dhabteeda oo cagihii sidaa uga dhunkaday waxa weeye biri lwaalidayn khasla min acdami alkhisaal oo ilaahay ummadda muslimiinta uu siiyey weeye haddaad ogtihiin dadkaan hadda faanfaanaya iyo meelaha aad u sii wada jeedaan aad leedihiin gaalaanu tegaynaa waxbaan tegaynaa anigu yurub iyo maraykan iyo kanada iyo maxay ahayd meeshii news meelo badanaan tegay waxaan isweydiiyey dadkana weydiiyey waxaan anigu ma arkin nin da oo nin dhalinyaro uu gacanta wado ama gabadh dhalinyaro ay wado yani ma arkin nin da ama islaan da oo gabowday oo ilmo yaroo nin dhalinyaro uu gacanta hayo maana arag maxaa jira war ma haysid miyaa maalay maya dadkan ma is yaqaanaanba daa markuu noqdo waalidku meel baa lagu xareeyaa meel dadka lagu xareeyaa jira wiilkiisa ama gabadhiisa ama ilmaha uu dhalay haddii waqtiga Christmaska oo sanadkii ay hal mar arkaan oo ayaaba dad fiican yihiinba dii kale maba shaqaba kuma leba waxaa la igu yidhi marka haddaad aragtana marmar meelaha baarkinada oo lagu lugeeyo haddaad aragto nin duqa oo nin dhalinyaro oo gacanta hayana ha u malaynin wiilkiisa waa nin meesha dadka da'da waaweyn ka shaqeeya shaqo weeye shaqo samaynaya maahina ma uusan dhalin lagama yaabo bay dhaheen maba dhici karto aabba gaboobay oo wiilkiisii uu gacanta hayo ama hooyo gabowday oo gabadheeda ama wiilkeeda uu gacanta hayo lagama yaabo in qoladan lagu arko ma nolol bay ku nool yihiin nolol kuma noola nolol maaha taas nolol waxaa tan ilaahayna siiyey ee ka faa'iidaysta kalima tayiba bir alwaalidiinka maaha dad baa wax iska jecelyihiin hooyo aabbayo hadiyo goor waxay sameeyaan bal loo duceey ku duceey maaha ducadu maaha wax afkaa
ducadu waa ficilka aad la timaado ducadu waa nadarka aabbaha iyo hooyada ay ku arkayaan weeye ficilka ay ka arkayaan weeye hadalka wanaagsaneed kula hadlaysa weeye aabbi iyo hooyo hadday hadlayaan xataa oy kula hadlayaan inaad hoos fiirisa mooye inaad indhaha aad ka buuxsato xataa ma aha min aladab waalixtiraam waaltaqdiir inaad hoos fiirisa weeye lianna waa wasiyat ullah waa dardaarankii ilaahay baa noo dardaarmay qur-aanka in badan buu ilahay ku soo celceliyey wawasayna alinsaana biwaalidayhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi midna waa wada ogaateenba ducadu waa laba nooc midna waa duco khayr ah midna waa habaar soomaalida habaar bay dhahaan lakiin af carabiga labada duca baa la yidhaha calayhi iyo lahu baa yaa lagu kala dacaa lahu wa dacaa calayhi baa la kala yidhaha carabiga labadaba ducaa la yidhaha ducada degdegta ee soo hormarta ee adduunyada lagu arko waa tan waalidaynta labada waalid waxa ay kugu duceeyaan ama ay ku habaaraan si degdega ayaa loo arkaa marka tawfiiqda allahna waafajiyo biri lwaalidiinkana ku dadaala waa wasiyatullaahi waaye hebel iyo cabdirashiidaad ma aha dardaarankayga aniga ilaahay baa noo dardaarmay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin taas maba ku jirtiin in sha allah walaa taqrabu alfawaaxisha fawaaxishna haw dhowaanina walaa taqtuluu الnafsa alatii xarama allah dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan wakhtigaa hadda soo gaabtay laakiin wuxuu ilaahay ku soo ururiyey markuu wasaayaadkii iyo dardaarankii soo dhammeeyey wa ana hada siraaطii mustaqiima waddadaydu waa taa toosan faاtabicuuhu raaca walaa tattabicu subula waddooyinka kalea aad u fara badan ee ilaahay kaa leexinaya ee meelo kale kugu duwaya kuwa ha raacin waddadeedaa raaca dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun waxaan isu dardaarmaynaa xub ullahi awala xubu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam haaniya xubu daar alaakhira aakhira inaan jeclaanno intaa waa intaa naftaadii iyo ilaahay kaa dhexaysa inta khalqiga kaa dhexaysa iyo akhlaaqda wanaagsanna kow ka bilow biri alwaalidayn ku xiji xusna alakhlaaq xusnu alakhlaaqna saddex baan ku soo koobaya waa saddex darajo darajada koobaad waa darajada diintaada la'aanteeda ayna diintaadu kuu badbaadaynin waa in sharkaaga muslimku uu ka badbaadaa waa darajada ugu horraysa min xusni alakhlaaq an takufa sharak can innaas qofna inaadan wax u dhimin adinkaaga ku dhimin afkaaga ku dhimin dhagahaaga mar baad ku dhibtaa oo waa maxay waa markaad xantiisa dhegaysato iyo waxa laga sheegayo heble saasay ahayd haddaad dhagaha ku dhegaysatay faqad aadaytahu waad dhibtay waad ka qayb gashay ka fogow waa darajada ugu sokaysa waay diintaadana la'aanteeda ma kuu badbaadayso camal kastoo saalixood samaysana dad kalaa qaadanaya taa waa fahnay darajada labaad waa in walaalkaa ama walaashaa waxa khayr ahee adigoo naftaada aad jeceshay aad la jeclaatid taasna afka waa sahal laakiin camaliyan in loo sameeyo allahna waafajiyo arrinta saddexaadna iithaar baa la yidhaha iithaarku waa darajada aada u sarraysa waaye macnaha waa waxaad adiga u baahan tahay baahidaada ah inaad walaalkaa siiso ama walaasha aad u doorbido walaasha iyo walaalkaa markaan leeyahayna kan islaamkan ka wadaa kan aabbihi hooyo ku dhaleen keliya kama wado kan yani walaa aabbahay hooyada hadday ku dhaleen oo muslimiin yihiin dayib marka in aad u doorbido ood isaga ka hormariso macnaa adoo gaajaysan inaad isaga dharjiso waynay sameeyeen saxaabada waa maqasheen qisadii ninkii gaajaysnaaya nebiga u yimid ee calayhi salaatu wasalaam ee yidhi waxaan u baahnahay waxa in la siiyo markii gurigiisa wax ka soo waayey war ninkan yaa qaadaya abu dalxiya aan ka sheekaynaynaa kaxeeyey gurigiisuu geeyey qofkii wanaagsanayd ee barakaysnayd buu guriga ugu geeyey cunto ma taallaa tii carruurta un baan hayaa haye isaga ha la siiyo aniga iyo carruurta kulliga aan wada qadno haddee marka waxoogaygii marka lasoo dhigay hadduu faynuusku shidan yahay wuxuu arkayaa inuu keliga cunayo oo cuntadii markaa kama gudanaye faynuuskana demi sidii bay yeeleen faynuuskii bay demiyeen isagiina waa dhargay arrintaa ilaahay baa ogaaday jala jalaaluhu allahu rabb alcaalamiin wuxuu u waxyooday nebigiisa calayhi salaatu wassalaam
دواكي النبي وكوي لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة أخلاقنا أساسا يقول علينا قرآن كان يندر دار ميا قرآن هو نعمة الله واي العظمى وينيد إن القرآن كما ركتي أنو برنو وأنو دتك سيبرنو ولوجه الله تعالى أنو برنو قرآن كقفك إلهي سيي وأنا وذسين دوناي كل جينه إنه أقوم وإلهي وكوافجيو وعرب كاga hadii goor aad ku hayso oo isaga aad shaqal ka dhigato dad waxa ugu khayr badan buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam kan quraanka barta dadkana sii bara tawfiiqna allahna waafajiyo dambigana allah dhaafiki waalidiinteena sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina ajma'in نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عاف المبتلين اكشف الضر عن المكروبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين دعاء الله نقبل والدينتنا الله دم العفو والدينتنا الله دم العفو والدينتيني وحيد انت إلهي نحريستي شاقيو إلهي جنة هقيو إلهي قبورتوده واسعيو إلهي روضة من رياض الجنة الله ودقو إلهي وحيد دنبيه قالين الله كرف إلهي وحي حسنات الله أضاعف وأوروري وأبضي إلهي جنة النبي يقب جنة الله نقول كل مين والدينتين انت النولا إلهي هبركيو إلهي حفظيو انت بكت الله عافيو انت بكت الله عافيو انت بكت الله عافيو انت لقبكنا الله نو عافيو أولادنا الله نو هجاجي قبل يويل الله نو هجاجي الله نو هجاجي الله نو إصلاحي إلهي وحن كبرنا مستقبل ونحسن إلهي ميد والبوسي أنت أنا ما شاف الذي أنت كلام مسلمين تقول عليه الملك استون جوجنا إلهي مرادك إنه رالك يا الله نجارسي الله نجارسي الله نجارسي إلهي خاتم ونحسن كل جن الله نسي عمري ونحسن يا عمل عمر ديره ونحسن يا عمل صالح الله نوذ الشيء الله نوذ الشيء عافماتك الله نسي الله نوكر لي إله ومن نسي الله نوكر لي صلاة يا عبادة يا طاعة الله نو معاني إلهي نو معاني قرآن كاج يذكر كاج إله نو معاني عرب كأن من ذكر كاج كوقيا هذه القرآن إله نقدك إله نوفض ذا إله نوفض ذا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا له سيدا خاص كدعاء أسوة جديستي إله وحن كبرينا سيدا قفك ولا شيء نه سو شيكتي المحرن إلهي إنه كسيد دايو ذكر حدا إلهي قعنته ذا كسيد دايو أنت ما أركتي هو المهذا كتب عليسن لو يعني لو ما روي الله سبحانوني الله سبحانوني الله سبحانوني كل جنب إله وحنا كبرينا إنه نود هنوني طاعة سين نقول تاجي دعوة دين إله إله إنه نقول نقاجي دعوة دين إله إنه نقول نقاجي توفيق ذا الله نوافجي دب جينا كي والدين الله داف مراكز الله بركي مراكز الله بركي مراكز بركي سن ونور الهداية وكفاف إلى مشارق الأرض ومغاربها الله كدوا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أي قبلنا ولا شيء حنو سنيسا دور سنو إلهي وحن كبرينا في هذا المجمع المبارك يدك ونكسنا لك الشويم إن إلهي كدر القاضي حنونك إلهي الله كدر القاضي الله كدر القاضي الله عافية إن شاء الله الله عافية أخونا رضوان هو يديشنا الله عافية كل إن ضد بابك الله عافية إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد